بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إخواني waxaan rabaa inaan qiso kale idin la sheergareeyo qisadaas oo iyaduna masaajidkan hadda aan joogo Abu Bakr Islamic Center oo Washington ka dhacday qisadana waxay ahayd maalin maalmaha kamid ah maalin Jumco ah aniga oo ururinaya fariisin iyo tabarucaad oo ururinaya masaajida ee muslimiintu ku leeyihiin wadankan ayaa gabadhaha masaajidka kamid ah baa lacag bixisay marka waana loo duceeyay gabadhii markii lacagtii bixisay loo duceeyay ayay baxday shaqay aaday habeenkii 11 habeennimo ayay shaqadeeda ka soo baxday iyadoo soo socota jidkuna uu xiran yahay oo laydku ka xiran yahay rad uu yahay ayay gabadhii soo gashay jidkii oo xiran boolis baana kala haa oo markaa maray qadarka Ilaahay booliskii bay xitaa ku dhici gaadhay kadib markii ay booliskii u arkay uu ku shitay gabadhiina way istaagtay uu soo daba istaagay waxay tiri hadal cajab badan waxay tiri ninkii soo wali soo degin maanta sadaqaad baan la baxay dadkii muslimiintaana way ii duceeyeen wallaahi way ku dhaaratay inayna suuragal ahayn aniga iyo booliska saacadda anoo gabadh muslimadu kaliya inuu halka igu qabto oo halka igu yimaado wallaahi bayna suuroobeen beter waxyaabaha cajabta ayuu hal xibba min ajaa'ib sadaqa waxay leedahay gabadhii wuxuuga markaan xalay bay ii warramaysay habeenkii xalay ahaabay gabadhaas qisada mar labaad iiga warramaysay waxay tiri markii aan uu soo dul istaagay halkiisii soo joogo muddo dhan ma soo degin aniguna baawrkan ku jiray isaguna kiisii ku jira waxay tiri ilaa 25 minutes 25 daqiiqo ayaan ku jiray oon la yaabanahay sababta uu soo degi lahaa markii u dambeysay buu soo degay waxay tiri daaqadan furay qalad weyn bay gabadhaasi ay gashay jid xiran oo nalku ka xiran yahay bay goynaysay boolisna waa ku dhici gaadhay marka wuxuu yiri laba su'aalood buu kaliya weydiiyay wuxuu ku yiri are you okay ma tahay haabaan ku iri bay tiri wuxuu yiri good night habeen wanaagsan waad ka socon kartaa you can go wada wadi kartaa inaad socoto haddaba waxaan soo xusuustay xadiiskii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo rasuulku uu yidhi dadka ilaahay waxaa ku jira dad baa ku jira low aqsama cala allaahi la abarahu baladuu fiirsada dadka waxaa ku jira dad hadday allah ku dhaartaan ilaahayna u samafalayo oo baarinimadooda u fulinaya yacni dhaartooda u fulinayoon been sheegaynin ayaa ku jira oo hadday dhahaan wallaahi waxaasi dhici ama wallaahi waxaasi ma dhacayo dad ilaahay u rumayn baa ku jira marka waxaa ka mid gabadhan inay tiri wallaahi buna ninkaasi suuragal ah inuu isoo gaaro ilaahayna kuma soo simin subxaanahu wa ta'aala haddaba ayuha alxiba qisadaas waxa aan rabaa inaan message-kay bixinayso waa min cajaa'ib sadaqada cajaa'ibta ay leedahay weeye marka waxay gashaa daawo mardaakum bisadaqa waxay noqotaa difaac iyo inay qofka dhibaato ku soo socoto ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga xijaabo waxay noqotaa satr min an-naar naarta in ilaahay subxaanahu wa ta'aala xijaab uu kaaga dhigo gabadh xijaaban oo faransiiska jaamacad ka mid ah jaamacadiisa ardada madax u ah waa gabadh xijaaban ardadii baa dooratay gaal iyo muslimba gabadhaasi inay matasho dawladdii faransiiska khalkhal galay wasiir dhan oo dawladdii ka mid ah wuxuu leeyahay gabadhaasi telefishin baa warsaday gabadha inay telefishin ka soo baxdo gabadh xijaabad waxa shock baa igu dhacay buu waa shock baa igu dhacay yaa kariim away xorriyadii away ilbaxnimadii reer galbeedka away ixtiraamkii xuquuqda away sheegi jireen wasiir dhan markaasaa joornaaladii iyo dawladdii gabadh xijaaban xataa ma wejigeedu ma qarsoona jilka intiisaa karnaa gabadha wejigeedu waa bannaaye laakiin maradaas war mara maxay idin yeeshay away xadaaradiinni away ilbaxnimadiinni away waxaad sheeganayseen away xorriyaddaad sheeganayseen gabadh xijaabkeed maxaa idinka galay mas'aladu marka xijaab waa ka weyntahay oo inta orgee ka weyn masaladu xijaab ma xijaabku diin buu matalayaa xijaabku dhaqan buu matalayaa xijaabku culture buu matalayaa culture-ka iyo dhaqanka xijaabkan iyo maradani ay matalaysaa lala dagaalsanaya wax kale ma ah sidaas daraaddeed dhaqanka iyo dulmiga iyo xadgudubka iyo istidcaafka muslimiinta maanta lagu hayaay
بإذن الله تبارك وتعالى وإسبدلي دونا إن نولاننا وادعي كرتا هدانا نولاننا وإيمان دونتا الله بلن قاضي نبي محمد نوانوغا ورمي صلوات ربي وسلام عليه